الله naxariista waxaa xabaalo ku yaala magaalada Hargeysa aas qaran loogu sameeyay marxuumad Hibaaq Mujaahid Cabdilqaadir Koosar oo shalay ku geeriyootay shil baabuur oo ka dhacay magaalada Hargeysa. marxuumad Hibaaq Cabdilqaadir Koosar oo ahayd xaaskii wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Salaan Jirde ayaa aasiyada waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo dadweyne aad u tiro badan. dadka aaska marxuumadda goobjooga ka ahaa ayaa ka markhaati kacay wanaageedii, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo Hibaaq Cabdilqaadir Koosar Cabdi Geelle oo shil shalayta ku geeriyootay. ilaahay waxaynu uga baraynaa iyada inuu naxariistii jannada ka waraabiyo. waxaan si gaar ah u tacsiyadeynayaa Cali Shoombe, caruurtii ilma Cabdilqaadir Koosar oo halkan imika inagala joogo. Koosar Cabdilqaadir Koosar waa caylad halgan bay ahaayeen. aabaheed wuxuu ahaa mujaahidiintii iyo marxuumiintii geesiyaashii raggii soo hogaamiyey halgankii SNM, madaxda ka soo noqday, guddoomiyaha ka soo noqday. aad iyo aad baan ugu tacsiyadeynayaa labada qoys, labadaba qaranka iyo intii aabahood la soo halgantayna waan ka tacsiyadeynayaa. qof aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd, addoon aad u wanaagsan bay ahayd, cibaado wanaagsan bay lahayd, gacan furan bay lahayd, qoys wanaagsan bay si wanaagsan u soo barbaarinaysay, wax soo baratay, mudakar ah. ilaahay lahaabaa oofsaday. waxaynu ilaahay iyada horta uga baryeennaa in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo, wanaageedii oo dhanna ilaahay u aqbalo. waxaynu halkan tacsi uga diraynaa dhammaan reer Cabdiqaadir Koosar geerida ku timi Hibaaq Cabdiqaadir Koosar Cabdi. waxaan marka koowaad tacsideynaa saygeedii Cali Salaan Jirde, ilaahay inuu sabir iyo iimaan ka siiyo. geeri naxdin bay ahayd, shil baabuur bay ahayd. Hibaaq Cabdiqaadir Koosar waxay ifka kaga tagtay 2 wiil. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samariyo iimaan kulligeen inaga siiyo. ilaahay waxaynu uga baryaynaa dadkii ay ka dhamatay dhammaantood in ilaahay cawil khayr qaba ugu bedelo dhammaantood. ilaahay subxaanahu wa tacaala marxuumadaas waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo. ilaahay ehelkeedii iyo carruurteedii iyo isagiina ilaahay samariyo iimaan ka siiyo. sidaa loo sheegana waxay ka soo jeedaa faamil taariikh leh. waxaan jecelnay insha allahu tacaala inay agsinanka kula noqotay kuwii dhintan ilaahay u naxariisto, kuwa kale ku dhaawacmayna inuu ilaahay uu saqray ayagana ka barinaa. waxaana inaga inagu waajibay inaan cibaarad ku qaadanaa dhimashada. waxa weeye in xabaalo wax loo yimaadaa in cibaarad lagu qaata. uga tacsida garanayaa Cali Salaan Jirde iyo qoyska uu ka baxday marxuumad Hibaaq Cabdilqaadir iyadana xiriirin jirtay, ilaahay naxariisana waraabiyo. ilaahay samariyo iimaan carruurtaa inantaasi ay ka tagtay mujaahidku dhalay. samariyo iimaan ilaahay ka salaweena bay ka tagtay. ilaahay labada inanna ha u tarbiyado, ha ugu ilaaliyo adduunyada. waxaa dhalay oo ay ka soo jeedaa Cabdilqaadir Koosar Cabdi Geelle iyo reer Jirde Cali ayay ka soo jeedaa. waa laba qoys oo labaduba taariikh ay ku leeyihiin qaranka Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland intaba. waxaan leeyahay ilaahay dhammaan qaranka iyo ehelkii iyo ubadkii iyo qaranka Soomaaliland dhammaanba ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo. tacsiyadeyna ehelka iyo asxaabta iyo qaraabada ay ka geeriyootay marxuumaddu waxa ka markhaatiya intaas oo ummada ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo. ilaahay samiriyo iimaan naga wada siiyo. anigoo ah caaqilkii Hibaaq Cabdiqaadir Koosar waxaan leeyahay waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka faraha badan leh ee ka soo qayb galay aaskeeda. waxaan ilaahay samiriyo iimaan naga siiyo. Hibaaq qof aad u wanaagsan bay ahayd, inay ehlu janno ahayd oo ehlu khayr ahaydna waxaad arkaysaa sida loo soo oogay aaskeeda. Hibaaq Cabdiqaadir Koosar oo ahayd geeri aad u naxdin leh. waxaan ilaahay uga baryaynaa marxuumadda inuu u dembi dhaafo, jannatu firdowsa ka waraabiyo. waxaan ka tacsiyeynaynaa halkan dhammaan eheladii, qaraabadii iyo qoyskeedii iyo shacbiga Soomaaliland oo dhan. ilaahay samiriyo iimaan dhammaanteen ha inaga siiyo. qoyskeedii iyo qoyskay ka soo jeedana si gaar ah uga tacsiyadeynaynaa. inna ilaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay samiriyo iimaan ha siiyo. cali iyo reerkii iyo ilma Cabdilaahi Koosar kulligood ilaahay samiriyo iimaan ha kala siiyo. iyadana ilaahay u naxariisto.